warkii oo dhameystiran. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta magaalada caasimadda Muqdisho waxa uu ka dhagax dhigay xarun ay yeelan doonto socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay in horey xaruntii ay ugu shaqeynaysay socdaalka iyo jinsiyaduhu aysan ahayn midii saxda ahayd ee barisamaadkii ay ku shaqeyn jirtay. warbixinta warkani waxaa sii dheereynaya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari. Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta dhagax dhigay dhismo cusub hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha laga siiyay meel aan sidaas ugu fogeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada Muqdisho. goobtan la dhagax dhigay waxaa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya sida kusimaha wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed, taliyayaasha qaar ee ciidamada dowladda Soomaaliya, mas'uuliyiin ka socotay maamulka gobolka Banaadir ee xubno matalayay waxda socdaalka iyo jinsiyadaha iyo dadweynaha aad u fara badan oo goobjoog ka ahaa goobtaasi la dhagax dhigay. ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay Maxamed Aadan Koofi oo ah taliyaha waxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee xukuumadda Soomaaliya. waxa uu sheegay inay farxad gelinayso in maanta uu dhagax dhigay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya xarun loogu talagalay inay ku shaqeyso waxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda Soomaaliya, isla markaana waxa uu carabka ku dhuftay in xaruntani looga adeegi doono xarumaha kale ee waxda socdaalka ay ku leedahay gobolada dalka Soomaaliya. ay hay'adu leedahay iyo dhismo iyadu ay leedahay ee lagana maamuli doono dhammaan howlaha iyo adeegyada ay hay'adu ka bixiso dalka guud ahaan. sidoo kale farxad noo ah in wasiirka amnigu nagala soo qayb galo iyo gudoomiyaha gobolka. waxaan rabaa inaan mahadcelin gaar ah u diro gudoomiyaha gobolka oo isagu dhulkan ugu deeqay iyo saaxiibo kale oo nagala qayb qaadan doona haddii la yiraahdo dhismaha xarunta. aad iyo aad ayaan maanta u faraxsanahay, shaqaalaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyaduna u faraxsan yihiin. waxaan rajaynayaa hawshan inay ku dhamaato waqtigii lagu talagalay oo maalmaha kamida shacabka halkaan ay noqoto meel lagu adeego. sidoo kale halkaasi waxaa ka hadlay gudoomiyaha gobolka Banaadir Anaduqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale oo sheegay inay farxad gelinayso in maanta Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya uu dhagax dhigo xaruntan loogu talagalay inay ku shaqeeyaan waxda socdaalka iyo jinsiyadaha, isla markaana waxa uu tilmaamay in markii hore meel ku meel gaar ah waxdan ay ku shaqeyn jirtay, isagoona sheegay in xilligan lagama maarmaan ay tahay in xarunta shaqaalaha ee deegaanka waxda socdaalka in dib loo furo maadaama uu sheegay in dhulkaani hadda ayaga la siiyay. Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda inuu dhagax dhigo goob loogu shaqeyn doono bulshada Soomaaliyeed adeegyada kala duwan. runtii annaguna farxad ay noo tahay inaan bixino dhulkan aan ugu talagalnay inay uga soo dhawaadaan dadka meelihii ay keeli lahaayeen adeega oo makareeshka khuseeyo dhan dhamaantiis. waxaan hadda la soconnaa wadadii Maka al-Mukarrama iyo wadadii guriga shaqaalaha oo hadda dhawaan dhagax oo dhisnay oo dhameynay inuu maaragtay xiran tahay. sababtii xirantana ay tahay makareeshkii oo aanan helin xarun oo ku shaqeeyo, laakiin waxaan leenahay inaan dhulkaana bixino meeshana sii xiraatiduna waxaan is leenahay agaasimaan u sheegaynaa suuragal ma noqon doonto. waxaan rabnaa wadadii aan dhisnay oo ku bixinay inay shacabku ay ku adeegtaan oo laga bilaabo maantaba in maaragtay loo fududeeyo. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo sheegay in uu ugu mahadcelinayo maamulka gobolka Banaadir xaruntaani ugu deeqay waxda socdaalka iyo jinsiyadaha ee dowladda Soomaaliya. wuxuuna sheegay in wadanka xilligan uu ku talaabsanayo horumar weyn oo la taaban karo sidoo hadalka u dhigay Ra'iisul Wasaaraha dalka. waa wax lagu farxo in la arko in dalkeena uu soo jeestay sidii dalka loo horumarin lahaa loo dhisi lahaa. waxaa la ii sheegay inay tahay markii ugu horeysay taariikhda oo ay hay'adda socdaalka iyo jinsiyaduhu yeelato xarun weyn oo laga maamulo. in maamulkeeda iyo gobolka Banaadir oo nu mahadcelinayna bixinta dhulka ay bixiyaan ay ka wada shaqeeyaan in xarun la helo. waxay idin tusaysaa dalkan inuu noqday dal hore u socda. wax walba lama xallin karo hal maalin iyo laba maalin, laakiin tilaabo walba oo hore loo qaado waxay noqonaysaa tilaabo ku soo korortay shacabka Soomaaliyeed oo ugu soo korortay si wanaagsan. waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo ka soo qayb qaadatay in ay arrinkan suurto gasho. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabari, Telefishinka Somali News, Muqdisho.